السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان واد السلامة ولا الله جل كنا كنا السومالي كنا كلتشر. أنت هبين وتهبين ونكسن تمانوتين مالو ونكسن قور كستا يكو كستين جوجنا الله سبحانه وتعالى خير بين ويد السنين. رمضان مبارك مر لبادية مر سدحادية مر فراد با ما أنت محاني نوضا ما أنت مركا أركتان ديرجاه وحفلي قفلي مركا روح ولا محاكو جرا لكن هتا فريا إنديه نام علينا للصعدة. walaalayaal waa ka dheerga maasha Allah waxa ku jira hilibka waa hilib huurisa oo si hawl yar loo kariyay oo aad dhadhankiisu macaan yahay aadna u udgoon guriga markaad ku karisana gurigaagu in hilib lagu uriyay aanu soo ureyn lagu kariyay marka la soco ilaa dhamaadka hilibka waxaan rajaynayaa ama aan filayaa hadaad san u karsato inaad maasha Allah tabaaraka raxmaan aanad maanta kadib saan heenaanad u karsanayn waayo waxa weeyaan cuntada guriga laga kariyaa ama lagu kariyaa qayb ay ka tahay guriga nadaafadiisa iyo urtiisa hadii marka maasha Allah si carfoon oo xawaashiye leh oo kaalay araga loo kariyo guriga maasha Allah hadii kale laakiin se guriga wax waxyaabo qasan lagu kariyo isaga laftiisa hawlihiisu ma yara marka hilibkaas iyo la socdo wanaagsan dheergeennina maasha Allah waa ku soo ridnay ilaa dhamaadka ina keena kicada marka waa tan maasha Allah walaalayaal sidii hawsho yareed hilibkii quruxda badnaa inuu soo aragnay loo kariyay gurigaagu markaad hadaad saan u karsato hilib ma ka soo uraayo waayo waxa laga yaabaa meelaha qaar hadii hilib lagu kariyo gasho jidho horeysa inuu hilibku urtiisa ku qaado hilibkuna Soomaalidu waxa meesha waa raqmo ogtahay hilibku aad bay yacni run ahaantii dhiig iyo urtahay markay isku karaan waa laga fiican yahay qaabkan hadaad u karsato hilibkaaga huuriska waxa ka baqayna dad kaliya reerka ka dhamayso haddaba tan waxa ashiyaadan ku daraya aad bay run ahaantii u fudud yihiin digsiga waxa igu jira 1 kiilo oo ah hilib riyaad hilibka biyaha lagu darayo qiyaasta waxay ku xidhantahay neefkaad karinayso ama waxaad karinaysaa wax yar oo dhayla ah ama waxaad karinaysaa riweyn oo duqa ama waxaad karinaysaa orgi ama waxaad karinaysaa lax adigu ma ogid adigu qof hilib soo iibsadaa tahay ama hadaad doonto sac baad karinaysaa weyn ama waxaad karinaysaa sac yar oo weyl yar oo la soo qalay waxay ku xidhan tahay neefkaagu ma dhayla oo waa neef yar mise waa neef weyn biyaha kolba ku kordhiso waad eeganaysaa markuu hilibkaagu ku jilco ayaa dabeetana aad samaynaysaa inuu hilibku ku noqdo markaa ku huuro waa tan hadaba anigu ashiyaadan ku darayaa halkan horta waxaan ku haystaa waa geeda adar yar in yar oo geeda adar yar ku haystaa ama xawaash burbur kii burburaa soo qaado tumo anigu kan dhaladu iskaga jira marka saasan hadda u soo qaatay halkan waxa iigu jira aan idin ku dhaweeyay kamarada halkan waxa yaala 3 xabo toona iyo 2 xabo basbaas cagaar ama basbaas qaci adigay kugu xidhantay basbaaska intaad cuni karto hadaanad cuni karayn iska dhaaf hadii basbaaskaad kaga sii badsanayso adigay kugu xidhantay dhadhanka basbaasku halka kale xawaashidii baa iigu jira waxa ayaan eegaya aan kaga daraayo halkaana hilibkii baa digsiga iigu jira halkana waa kan muhiimadu halkana waxaan ku soo shubtay 12 xabo haylaan ku soo tuntay inta halkaasaan ku haystaa hadda walaalayaal waxaan idin dhex raacinaya fikrad yar oo maasha Allah anaga aad yaan facday halkan waxa iigu jirta bacdan toon baa iigu jirta saa arkaysaan toonta bacda iigu jirta arkaysaan diirkeeda way wadataa toonta waan soo iibsadaa waan kala wada furfuraa bacahaasaan ku guraa qaybta talaagada qabowga barafkaan gashadaa freezerkaan gashadaa bil 2 bilood 3 bilood 4 bilood 6 bilood in allaala intay doonto ma ka warwaraysi toon baa iga xumaatay iyo toon baa iga qaadhay iyo markastood soo saartana saasi fresh kugu eegtahay toontaad maasha Allah marka fadlan toonta saa u sameeysta marka soo iibsataan haddaynu hadaba digsiga isugu wada geynaa isku wada dardarayna hadda waxaan ku darayaa chiliga 2 xabbo chili habaan ku darayaa iyagoo macaawata midhahoodii waayo aad ma kululaan basbaaskan aan haystaa 2 xabbo chili iyo midhahoodii baan ku daray toonta iyada ma tumaayo mana yaryaraynayo diirku ma ka qaadaya waan ku dhex tuuraya hadhowta marka hilibku karaa ayaa dabeetana biyaha ku dhex burburinaysa 3 xabbo toon baan ku tuuraya yacni aad bay run ahaantii karintiisu u hawl yar tahay dhadhankiisana idinka ka soo sheekayn doona waad yaabaysaa maasha Allah tabaaraka raxmaan hilib dambe waxaan ku leeyahay uraayo dufan ma jiro waxaan ku leeyahay iska qaban وكاكاسنا
waxaan ku darayaa iminka haylkii baan ku daadiyey digsiga intaan maalin dhaweyto baasta ku kariyay biyo baasto ayaa kaga yara mashquulay biyihii baa iga horkaray inta wax kala wadwaday dee digsiga bay guntiiga madoobeeyeeno waa inaan imka yara sugaa intuu yara cadaanayo dhowr cisho xoqay laakiin waqti bay qaataan biyuhu marka weelka way madoobeeyaan macdanka ah marka hadda waxaan ku darayaa kale in yaro geeda adariya ama xawaash buurbuurkii iyo tuna wax aad u hawl yar yacni run ahaantii marka la karinayo hilibka noocana waana wax aad u dhadhan wanaagsan ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxaan ku darsanayaa hal qaado ah 1 teaspoon oo maraq maajiga iyo qaadada barkeed oo ah cusbo dhanaankeeduna waa inta liintan liin dhanaantan iyada gadaal baynu kaga daraynaa haddii la haydmo imika intaas baynu biyo kululaa ku daraynaa daboolkaynu u xidhaynaa dabkaynu saaraynaa maasha Allah hilibku waa ka hadda dabkan soo saaray daboolkan u xidhaynaa waan iskaga tegaynaa intuu soo bislaanayo maasha Allah walaalayaal hilibkii waana yar waxbaynu ka daba geegeynaa wax yar baynu ku dardaraynaa hadda waxaan ku darayaa xabada liin dhanaanta ee soo miiray iyo xabada tamaandho xabuuta ama yaanyada kulbasaad u taqaano aan soo jarjaray labadaasaan ka daba geynayaa waan ku soo darayaa weli wuu karayaa markuu soo bislaanayana 3 shay baan ku darayaa oo badnayn insha Allah meel kastana ka heli doontaan la socod wanaagsan walaalayaal waa kan hilibkeena ma sha Allah hadeer waxaan ku soo daray xabad basal aan soo yaryareeyay kamsara aan soo yaryareeyay iyo 2 qaado ama 2 malqacdood oo saliid saytuuna intaas ugu dambeynaysa ka bacdina daboolkan u xirayaa uu soo huuraya hadda biyo wax yanba kunta ka sii jira saaragtaan intaas roodhan biyo ka soo laacay marka insha Allah isku soo noqdo wanaagsan ma sha Allah walaalayaal waa ka hilibkeena soo baxay kalarkiisa ma sha Allah waa aragtaan quruxdiisa jileecana kala yarag saas u faraaw kala raacaya dhadhankiisa iyo dhan wuu haystaa guriga in hilib lagu kariyo ma moodaysid markaad soo gasho ma sha Allah iyo hadii cidaba ku soo booqato lagu soo galaba ma moodaysid way hilibku waa raq weeyaan hadaan wax lagu dardarin oo la ududgoonayn si kale u raa marka ma sha Allah tabaaraka raxmaan maanta kadib waxaan rajeynayaa inaad san karsan doontaan kana heli doontaan insha Allah taala like iyo share iyo comment iyo subscribe kuna waa xaqiina ana waa inaan idinkana barnaamijyo anfac idin le waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh